السلام عليكم. welcome to Assis TV show. maanta waxaanu ka hadlaynaa insha Allah labana sukin raacinaya item oo aad ugu fiican skin kasta, gaar ahaan dry skin, waliba xilli dhaxameedkan insha Allah. soo warbixinta labadaas insha Allah maanta idin la wadaagay, soo diyaar garooba. Thank you. Welcome back everyone. maqaarka cabashadiisu waxay ka mid tahay yani waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay dadkii si joogta ah ama uga hadlayaan ama warbixinteeda u raadinayaan. Okay, waliba xilli dhaxameedkan yani dadkii maqaarkii waxaa ka haysta caqabado yaryar. anigu ma orani wax waaweyn mushkilada weeyaan, because mushkilad kasta xal bay leedahay insha Allah. muhiimadda loo baahan yahay waxa weeyaan qofkii inuu fahmo baahida maqaarka iyo cabashada maqaarku waxay tahay. Because guys, haddaad ogtiin haddii kaleba maqaarkeenu intaa wayna la hadlaya, wuu inoo sheegaya. maqaarkeenu wuxuuna siiya feedback dhammaystiran ayuu wax kasta naga siiya. innaka maxayna looga baahan yahay inaynu insha Allah yani maqalno wuxuu maqaarkeenu inagu leeyahay. maqaarkeenu wixii anfaca wuu sheegaya, wixii waxyeelaya wuu sheegaya. Okay, wax kasta wixii fool xumanaya wixii qurxinaya maqaarku been kuu sheegi mayso. adigii waxaa la rabaa inaad maqaarkaaga insha Allah intaad la saaxiibto aad la shaqayso. Okay, ha ka hor imanin baahidiisii, ha ku qasbin wax aanu u baahnayn. Okay, so taas waxa weeye waa qaacidad. Okay, waxa weeye waa foundationka wax kasta insha Allah loo marayo skincare markay noqoto. waayahay dry skinkii cabashadiisu waa dheeraad xilli dhaxameedka. Okay, dad u dhashay maqaarkoodu dry inuu yahay oo uu sii qalalayo qaboobaha, iyo dad caadi iyo normal skin leh ama oil skin laakiin xilli dhaxameedka yara tabaya qalayl dheeraada. Alright, markaasaad ogtihiin anigu waxaan idinla wadaaga markay noqoto products lasoo iibsanayo lacagi galayso, anigu kuwan isticmaalo waan idinla wadaaga 100% si daacadaan idinla wadaaga. ma idhaahdo yani raadiyo oo wax kale idinma anfacayo. No, wax fara badan oo kale oo idin anfacaya way jiraan oo ka jaban. hase yeeshee aniga aasi ahaan baa gaar isaga jecel lineka skincareka, waliba Estee Lauder, waayo waa kambaniga ugu taariikh dheer skincare markay noqoto. Okay, macalimadii wax kasta weeyaan Estee Lauder. marka masha Allah, that's why baan anigu jeclay alaabtooda. so maanta waxaan jeclaaday insha Allah inaan idinla wadaago laba item. marba mid baan ka hadli, kanaan ku bilaabayo insha Allah. kani aad buu u fiican yahay. dad fara badan waxaa laga yaaba inay u arkaan iska luxury item waxa la yidhaahdo, yani wax laga maarmi karayo, iska yani wax qaaliyo uno maaragtay xarago gelaya, laakiin laga maarmi karayo. waa laga maarmi karaya absolutely. horena waan idinku sheegay, bedelkiisana hore xitaa waan idinku sheegay. waxaan idinku ori rose water maaul ward intaad ku shubataan qaruurada macaagad si fiican u buufismaysa. ku dara dhibic yaroo saliidda glycerinta ah, because glycerintu waxay ku milmaysa biyihii, and then isku buufiya. almost way idiin gelaysa halkii kan, laakiin de of course isku tayo maaha. kan waxa soo galay technology fara badan faa'iidooyin fara badan ayay leedahay. waxyaabaha aan kaga yaabay anigu itemkan cajiiba waxa weeyaan, horta waa biyo. Estee Lauder, kambaniga Estee Lauder baa iibiya. intaasun baaba igaga hadhay. dhibic yar ayaa wejigaaga oo dhan ku filan. marka iyada waxaa laga hoosaysiinaya serumkii ayaa laga hoosay, ama ka Estee Lauder ha noqdo ama mid kale. in yar qalaylkoo dhan keligeed ba xitaa biinaysa. kaman ka yaabay markaad marsato wejigaaga dhan qalayl way isdeynayaan. and then serumkii markaad ka yara dulgeyso, serumkuna qalaylka wuu bi'iyo, because hyaluronic acidna wuu leeyahay. isaguna qalaylkii waxaan ku ori intii kugu hadhay wuu kaasii bi'inaya.
dadka helaya markasta waan soo sheegay videoyada meesha laga helaya alaabaha Estee Lauder carabaha khaliijka dhan waa laga helaya moolalkooda Europe oo dhan Mareykan Canada and then website-ki qofka xitaa hadduu joogo meel aanu ka helin website-koodu geli karay www.esteelauder.com wata Mareykan China Asia meel aan laga helin ma jirto Africa maybe meel in laga helo Africa waan maqlay Kenya waa la keenay Estee Lauder maca anigu markaan tagay waan ku arkay Christian Dior iyo Chanel iyo waan ku arkay so hadii la barbaaro maybe waa la helaya waaba la helaya as a matter of fact waxa laga helaya moolkii magaciisu muxuu ahaa Westgate sababta adigu Kenya mall aan tagay waan ku arkay brand nameska Estee Lauderna dhinac dhan baa bay haysatay so Kenya waa laga helaya guys okay so dadka ka cabanaya qallayl siyaada ah dad badan baa jiro igu xirano serum-kii soo iibsaday kan haddii aad afford garayn kartaan oo lacagta u haysana awoodi kartaan waad soo iibsan kartaan insha Allah aad buu qaleelka idinka bi'inaya wajigiinana aad buu u nafaqaynaya waa $60 Mareykan Europe wax kasta way kaga sii qaalisan yihiin marka la soo Mareykan laga soo fogaadoba Europe bay ku sii qaalisan tahay alaabtu so kaas magaciisa waxa la yiraahdaa Estee Lauder Micro Essence okay mana xidhnin muraayadahayga laakiin I can see waxa la yiraahdaa skin activating treatment okay lotion so waa lotion biyo ah wuxuu maqaarka u qoynaya ee maqaarka u cabayo qaleelka u bixinayo waa lotion-kiyo biyo ah yani waxa weeye waa cream-kiyo biyo ah oo kale masha Allah so waa recommendation-kayga cidii afford garayn karta qaleelka cabanaysay ku soo darsada serum-kinika insha Allah alright mid kale oo aan jeclaa inaan gaar isaga uga hadlo because warbixintiisa fara badan laakiin no problem video-gan double ka dhigaya labada item waxa weeyaan waa Estee Lauder waa peel waxa weeye ka qolofta dhimatay oo dhan ka qaadaya kan yani technology-giisa cajiiba wajiga waad wada marsanaysaa waad ku dhamaynaysaa qoloftii oo dhan buu ka qaadaya indhahaagu arki maayaan qolof uu qaaday arki maysid wuu ka wada qaadaya biyo cad baad iskaga rogaysaa and that's it xabad qolofi kugu hari mayso oo dariskina casaan kaa dhigi maayo iyo irritation kuu samayn maayo ku gubi maayo olol iyo hafeefa dareemi maysid absolutely waxaad dareemaysid ma jirto waad marsanaysaa qoloftii oo dhan wuu kaa ridayaa laynkan waa laynka silverka ah because sidii aan idiin sheegay Estee Lauder waxay leedahay laynan fara badan oo kala duwan oo layn kasta isu dhammaystiran yahay oo serumkiisii kreemadiisii waxyaabihiisii leeyahay okay ka brownka ah waa advanced night-ka kan silverka ah wax kasta oo nooca silverka waxa la yiraahdaa magacooda Perfectionist Pro line kii brownka ahay serumku kamid ahaan maxaa la yiraahdaa advanced night repair line okay Perfectionist Pro line ka la yiraahdaa kan waxa weeye waa instant peel alright aad u miisaaman technology-giisu cajiib tahay waxba aan ku yeelin waxba aan ku dhibayn aad buu qaali u yahay guys wallahi ma xasuusto lacagtiisa intay ahayd website waad ka baari kartaa ma dhowr iyo 70 ba ma dhowr iyo 60 ma dhowr iyo 80 intaas saddexdaas meel uu galay baan jeclahay waan weyn yahay muddo dheer ku waday aniga sanad ka badan ku internet haysay imka walina mu dhamaanin okay anu mid kale waxaan isticmaalaa bishii marun baan peelka noocan sameeyaa ma sameeyo inta kale scrub weekly mar scrub ama laba jeer kama badiyo waliba one time baan u badnahay anigu meehi dadka aad u xoqxoqa wajigooda so guys cidii u baahnayd peel ee qoloftu dhibtay aanay ka dhacayn ama inay iska ridaan ay ku kalifayso xoqitaan badan iyo maqaarkii irritation fara badan iyo dhib badan inay u geystaan haddii aad afford garayn kartaan weeyaan markasta hadalkaygu haddaad awoodaan dhaqaale ahaan Estee Lauder waad ka helaysaan absolutely waa recommendation-kayga peel fiican way iska fiican tahay maqaarkaaga inaad maal gashato oo alaab tayo leh haddii aad helayso aad gashato aniga waxba igama dhaxayso ama alaab tayo fiican ama wax dabiici oo organica alright labadaas ayaan anigu isku wada alright laakiin weliga intaan tanaasulo oran maayo peel ama cream jaban baan iibsanayaa
$2-4 oo dhaawaciisuna hadhowto sanado qaadanayo in laga soo kabto ama aan laga soo kabanaynba. Okay, so ama lacagta waa la huraa ama dabiiciga ee organica ayaa lagu ekaada, because kana wax kuma yeelo kana wax kuma yeelo, labadaba faa'iido un baad kala baxaysa insha Allah. So that's recommendation, because dadka qaar ba ay weydiiyay peel fiican noo sheeg, peel fiican noo sheeg. So there is one mid kale idin soo raadinayay oo aan warbixintiisa hayo, laakiin waan raadinaya markuu gacantayda soo galo waan idinla soo wadaagay, because kan in badan buu ka jaban yahay, tayadana waxa laga yaabaa inay isku dhow yihiin. So insha Allah dadkaan afford garayn karayn kan hawshii kii kale ku jira, as soon as aan soo helo waan idinla soo wadaagay warbixintiisa insha Allah. dadka wajiga qalalan aad buu u anfacaya, because qolofta sare markuu ka qaado wajigooda wuxuu siinayaa يعني chance uu neefsado uu cabo wixii la marinayay oo qalaylka fara badani ka bao. dadka oiliga iyo normal skinkana aad buu u fiican yahay cid kasta. So ma laha skin type u gaara, it's for all skin types. Okay guys, insha Allah. So labadaas item insha Allah ciddii u baahan way ka helaysaa Estee Lauder. And I love it absolutely aad baan u jeclahay. So waad iga haysaan warbixintii labadaana. sidaas insha Allah iyo videoga dambe iyo ka faa'iidaysi fiican. aad baan idin wada salaamaya. maca salaama.